runaantii xukuumaddu waxay xoogga saaraysaa in sidii Somaliland ay uga mid noqon lahayd wadamada adduunka sidii Somaliland ay u noqon lahayd wadan qaniya oo dadkeedu ku nool yihiin bashbash iyo barwaaqo madaxweynaha dalkan aan ku nahay aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay waad ku mahadsantahay soo dhaweyntaadna soo dhaweysay madaxweyne aad iyo aad bay farxad igu tahay inaan maanta aan ka soo qayb galo aan halkan joogno iyadoo la hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland farxad weyn bay noo tahay in maanta aanu dib u cusboonaysiinayno nidaamkeediina kor u qaadayno safaaradda aynu ku leenahay waddankan Kenya oo intuu ah safaarad aad u shaqaysa muhiimad weynna u leh ummadda reer Somaliland ee halkan ku nool hadday tahay kuwa xilli hore soo galay dalkan iyo hadday tahay kuwa dhawaan yimid ama dalkii u socdaba intii aad iyo aad bay muhiim u tahay safaaradana wax weyn ka tari doonta xiriirka labada dal ee Somaliland iyo Kenya oo run ahaantii muhiimad weyn inuu ku fadhiya gaar ahaan ictiraafkeena iyo inaynu wax la qabsano dalkan Kenya run ahaantii intan xukuumadda cusub ay jirtay madaxweynaha Cabdiraxmaan uu hogaaminayay waxaa guulo waaweyn laga gaadhay oo madaxweynuhu ku hogaaminaya inaynu siyaasad furfuran oo dabacsan oo ah inaynu wax la qabsano wadamada Geeska Afrika oo runtii ah inaynu u baahanahay inaynu xiriir wanaagsan la yeelano mid dhaqaale mid siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqanintaba run ahaantii xukuumaddu waxay xoogga saaraysaa in sidii Somaliland ay uga mid noqon lahayd wadamada adduunka sidii Somaliland ay u noqon lahayd wadan qaniya oo dadkeedu ku nool yihiin bashbash iyo barwaaqo run ahaantiina midnimadana gudaha iyo dibaddana loo xoojin lahaa waqtigu waa kooban yahay hadalka intiisa badan kulli waxaan u daysan doonaa munaasabadeena soo koobayso May qabsoomi doonta 13 bisha aad iyo aad baan u salaamayaa martida halkan joogto oo dhan waxaan leenahay sidaad noo soo dhaweyseen ilaahay ninkana idin karaamo iyo sharaf idin ku soo dhaweeyo waxaan ugu dambeyn u mahadnaqaynaa kulley madaxweynaha ka hadli doona kulankii la yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya mudane Ruto ahaa kulley kulan aad u miradhala oo aad qurux badan wax wanaagsan oo qurux badan ay ka soo baxeen dhammaan intii aynu dareemaynay hadday tahay siyaasad hadday tahay dhaqaale hadday tahay isdhexgal intaba lagaga wada hadlay waxa kaloo soo dhaweynayaa waqtigaanu wada soconay dhammaan bulshada halkan fadhida haween iyo dumarba haween iyo ragba oo aan leeyahay soo dhawaada madaxweynaha dalkan aan ku nahay aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay waad ku mahadsantahay soo dhaweyntaadna soo dhaweysay madaxweyne intaa markaan ka imaado halkan maanta waxaynu isugu nimid waa arkaysaan waa xafiiskii matalayay jamhuuriyadda Somaliland waxaan aad ugu mahadnaqayaa ambassadorka والله وادكم هتصنتها sababtoo ah ambassadorku waxa weey wuxuu matalaa horta madaxweynaha qaranka ayuu matalaa waa madaxweynaha halkan fadhiyo kama duwana waxyaabaha xafiiskana uu muhiimka u yahay inuu qabto Somaliland ee halkan degan waxay u baahan yihiin inay kala shaqeeyaan kow haday tahay xiriirada caalamiga ah oo dalka laga shaqeynayo haday tahay iskaashiga haday tahay dhaqaalaha waxbarashada iyo dhinac walba shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay